kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Ubaal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaare Xamse oo dhibsaday in amnigiisa ay sugaan ciidamada shisheeye boqorka dalka Malaysia wuxuu tilmaamay in walwal uu ka qabo isagoo aan tagin Soomaaliya inuu dhinto iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan Putin oo hanjabaad argagax leh u diray Sweden, Finland iyo NATO. qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janaalka Ubaal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka aanu ku baahina janaalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii sheer garay laagtiinana waa inoo muhiim aatanna kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay arrimo uu dhibsaday oo uu ku arkay villa Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu ka shaqeynayo sidii arrimahaasi uu wax uga bedeli lahaa. Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay inuu dhibsaday in gabar ka tirsan Amazon oo aan muslim ahayn ay qaabilsanaato ilaalintiisa oo ay ka ilaaliso dadka Soomaaliyeed isagoo sheegay in arrimahaasi ay ka mid tahay waxyaabaha uu dhibsaday ee uu ku arkay madaxtooyada dalka. in gabar yar oo aan muslim ahayn oo aan diin iyo dhaqan lahayn ay waardiyeyso oo qof Soomaaliya iga ilaaliso ma ahan waxaan aqbali karo ayuu yiri Xamse. ra'iisul wasaaraha dalka ayaana dhinaca kale soo hadal qaaday amni darada dalka ka jirta wuxuuna si gaar ah isu dul taagay dhibaatooyinka jira xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ku xiran gobolada dalka oo diyaarado loo kala raaco amni darada darteeda. caqligeena waa rogan yahay haddaan Soomaali nahnay sax maahan inaan diyaarad u kala raacno Jowhar iyo Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo caqliga waa rogan yahay ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra'iisul wasaaraha. Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay munaasabad ay hotelka Jazeera ugu qabteen ardadii wax ku soo baratay dalka Malaysia oo isagu kamid ahaa ayaa sheegay inuu soo dhisi doono maalmaha soo socdo xukuumad tayo leh oo uu kala tashanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. geesta kalena boqorka dalka Malaysia ayaa ka dhawaajiyay inuu walwal ka qabo isagoo aan tagin Soomaaliya inuu dhinto. Soomaaliya iyo Malaysia oo dhacda koonfur bari ee Aasiya ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir diblomaasiyadeed oo xooggan iyada oo labada dal ay leeyihiin iskaashi dhinacyo kala duwan leh oo ay ugu miinsan tahay waxbarashada. danjiraha Soomaaliya oo fadhiya Kuala Lumpur Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi ayaa magaalada Muqdisho oo uga qayb galaya munaasabad lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay xiriirka labada wadan wuxuuna sheegay in shacabka iyo dowladda Malaysia ay aad u jecel yihiin Soomaalida. dowladda Malaysia aad ayay ula socotaa arrimaha Soomaaliya waliba waxay u hayaan kalgacayl gaar ah wanaag xushmad iyo qadarin gooniya ayuu yiri danjira Mardaadi. sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay jecel yihiin in mar uun ay yimaadaan Soomaaliya oo waxa mar walba niyadooda ay ku hayaan goorma Soomaaliya tagayna ayuu raaciyay hadalkiisa. safiirka Soomaaliya ee wadanka Malaysia ayaa sidoo kale ka sheekeeyay sheeko dhaxmartay isaga iyo boqorka dalkaasi mar uu kala qayb galay xaflad afura. habeen xaflad afura annaga oo wada joogno boqorka wuxuu ii sheegay aniga waayeel ayaan ahay wuxuu yiri waxaan rabaa inta aanan aniga xilka ka tagin mise aanan dhiman inaan Soomaaliya mar tago. intaas ayay ka taagan yihiin madaxda Malaysia ayuu mar kale khudbadiisa ku yiri Abuukar Cabdi Cismaan Mardaadi. ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay danjiruhu in dowladda Malaysia ay aad Soomaaliya uga caawisay dhanka horumarinta waxbarashada wuxuuna shaaca ka qaaday in arday lagu qiyaasay 8,000 ilaa 9,000 inay ka soo qalin jabiyeen jaamacadaha ku yaala wadankaasi. waa hagaagay daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa xaaladda Ruushka iyo dalalka adduunka qaarkood ayaa cirka isku sii shareertay wuxuuna hanjabaad adag u diray Sweden, Finland iyo ururka NATO. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay NATO inay leedahay hami boqortooyo iyadoo xulafada reer galbeedka ay ballan qaadayaan inay kor u qaadaan taageerida ay siiyaan Ukraine. isagoo ka hadlaya dalka Turkmenistan ayuu Mr Putin sheegay in saxafiyiinta iyo xubnaha NATO aysan wax dan ah ka lahayn wanaaga dadka reer Ukraine. waxa uu sheegay in Ruushku uu jawaab celin ka bixin doono ciidan kasta oo dheeraad ah oo la geeyo dalalka Sweden iyo Finland kuwaas oo ku guda jira geedi socodka ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. inta la og yahay waa safarkii ugu horeeyay ee uu Mr Putin ku tago meel ka baxsan Ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine. shir madaxeedka Madrid
ee madaxda NATO ayaa ballan qaadeen taageerida Ukraine ilaa iyo inta ay ku qaadatoba. NATO ayaana si rasmi ah Sweden iyo Finland ugu casuumeen inay ku soo biiraan isbahaysigan iyagoo soo afjaray dhexdhexaadnimadooda military ee 10 sano ay wadeen. Turkiga ayaana ka soo horjeesta go'aankaasi isagoona ku eedeeyay labadan wadan in ay martigeliyaan dhaqdhaqaaqyada Kurdiyiinta oo uu Turkigu u arko urur argagixiso. Laakiin madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa markii dambe ogolaaday codsiga dalalkaasi taas oo beddelkeedna loo helay damaanad qaadamni. Go'aankan ayaana daba socday kulan ay ka qayb galeen Mr. Erdogan xogayaha guud ee NATO iyo madaxda Finland iyo Sweden. xafiiska madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaana sheegay inay ka heleen wixii ay ka doonayeen Sweden iyo Finland. labada dal oo Yurubta waqooyi ayaana shaaciyeen rabitaankooda ku aadan inay NATO ku biiraan bisha May iyagoo uga jawaabaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. xubnahan dalalkan ayaana waxa ay durbaba shaaciyeen saaxiibada ay ku leeyihiin gaashaanbuurta NATO. Joe Biden ayaana sidoo kale talaadadii telefoon kula hadlay Mr. Erdogan. Sarkaal sare oo Mareykan ayaana sheegay in madaxweynaha uusan wax heshiis la gaarin Turkiga balse wuxuu intaas ku daray in Mareykanku uu taageerayo casriyeynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayna sii wadayaan wada hadalada ku saabsan codsiga Ankara ee F-26. Moscow waxa ay ballaarinta gaashaanbuurta NATO sheegtay inay ka dhalan doonto cawaaqib aan la mahdin iyo xasilooni daro daba dheeraata. Ruushka ayaana si adag uga soo horjeestay in labadaasi dal ay ku biiraan NATO waxa ayna Moscow u aragtaa in ballaarinta NATO ay halis ku tahay amnigooda. haddaba intee gaarsiisan tahay awoodda NATO? wadan kasta oo xubinka ah oo ay weerarto cid saddexaad markaas wadan kasta oo xubinka ah waa inuu u soo galo si uu u difaaco dalkaasi si wada jira. nasiib wanaag dalka ay danta ugu jirto NATO waxaa ka mid ah wadamada sida Montenegro oo kaliya 67 milyan ku bixisa sanadkii difaacidooda, waxaana jira qaar ka mid ah wadamada waaweyn oo hanti intaa ka badan ku bixiya isbahaysigaas. Mareykanku wuxuu ku qarash gareeyaa in ka badan laab inta kale ee NATO marka la isku daro, iyadoo uu sanadkii 2020 qarashka ku baxay lagu qiyaasay 705 bilyan una dhigmata 516 bilyan oo euro sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. marka laga soo tago inuu yahay dalkaasi dalka dhaqaalaha ugu badan geliya difaacidda adduunka, Mareykanku sidoo kalena wuxuu leeyahay hub awood badan iyo tiro aad u badan oo ciidan tababarana 1.3 milyan ayaana ah ciidanka diiwaan gashan ee shaqeynaya, kuwaas oo sidoo kale leh 865 kun oo kale oo keeda sida lagu sheegay New York Times sanadkii 2017. UK waa tan labaad ee ugu weyn guud ahaan gaashaanbuurta NATO iyaga oo geliya ku dhawaad 50 bilyan sanad walba marka la barbar dhigo Jarmalka oo geliya 45 bilyan, Faransiiska 42 bilyan iyo Talyaaniga oo geliya 20 bilyan. inkastoo aysan jirin ciidan go'an oo NATO ah, isbahaysigu wuxuu ka faa'iideysanayaa ku xisaabtanka awoodaha military iyo khibradda wadan kasta oo xubinka ah isbahaysigaasi. dal kasta waxa ay miiska soo saaraan oo ay ku jiraan ciidan, taangiyo, dooman dagaal, xitaa diyaaradaha casriga ee dagaalka. maanta waxay awood u leeyihiin in la tiriyo ku dhawaad 3.5 milyan oo qof oo iskugu jira shaqaale, ciidan iyo rayid oo ka tirsan ururkaas. wadan kasta oo xubinka ah waxa uu ogolaadaa inuu wax ku biiriyo iyadoo oo loo eegayo miisaan istiraatiijiyadeed oo kala duwan iyo waliba arrimo kale oo kala gedisan oo dhinac kastaba howl gaara uu ku aadayo. si guud dalalka NATO xubinka ah ayaana gaarsiisan 30 xubnood. guud ahaan daawadayaal wanaaginta warki oo aad kala socoteen Hubal News, fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro oo ka mid noqo saaxiibada hela wararkii warbixinada aan ku baahina channelkan. aragtidiina halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inoo muhiim. waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka channelka Hubal News.